Ohio wuxuu ahay Minnesota Muslim ee u haysto marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadan waxay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof Muslim oo adag inuu jagada sayidna ugu fadhiisto aan aadan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga diraan booskiisa waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli Mareykanka dadkoodu ay aad u kala qaybsan yihiin isla markaasina Muslim nacayb badan u jiro xilligaas inaad guuleysato iyo waxa maskaxdaada والله waxaan u maleynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan waddankaanayt inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo waxaan u maleynayaa hadda in dareenkaasi jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada soconno waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waddanka waxaad tegaysaa golaha koongareeska Mareykanka waad og tahay madaxweynaha dalka Mareykanka gobolka Minnesota yimid Soomaalidana si kulul u weeraray habeenkii halkaas aad tagto madaxweynuhu ka qudbeynaya fariinta ay dirayso fariin weyn dadka badanaa campaign-kayga ku jiray waxay dhihi jireen inta kaliya aan xiisaynayno waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonayo dadkii sharciga asiga ka soo dejin lahaa marka intaas inta kaliya aan u malaynayaa inay ku filan tahay Talk to me about it. It's an exciting night. It's been a really amazing journey. We've had really great opportunities to have a conversation across the district to really talk about what direction we wanted to take our country. And tonight, throughout, not only in my race, but throughout the country, people are choosing hope over fear and unity over division. And it's a really exciting opportunity in a time when Somalis are on the Muslim ban to be sending a Somali refugee to Congress. Minnesota is sending a clear message. And it's an exciting opportunity. Ilhan, any message for the women? Ilhan, any? Thank you. I appreciate it. واتاي تاوديالتاسي waxay ahayd Ilhan Umar oo VOA u suura gelisay inay fursad siiso ay kula hadasho kadib markii la doortay isla markaasina ay noqonayso gabadhii ugu horeysay ee Muslim gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya isla markaasina gabadhii kale ee iyaduna Muslim ay ku biirta golaha Koongareeska ee waddanka Mareykanka dabcan sidaad u jeedaan Soomaali fara badan ayaa caawa halkan isugu timid iyo waliba dadka kale ee Mareykanka oo dhammaantood aad ugu faraxsan inay Ilhan ka mid noqoto golaha koongareeska ee waddankan Mareykanka waxaan jeclahay haatan dadkii halkan isugu yimid Soomaalida mid kamid ah inaan soo dhaweeyo bal isagana dareenkiisa aan wax ku weydiiyo iga waran caawa maxay uga dhigan tahay Soomaalida muslimiinta ku dhaafay Soomaalida wuxuu magacay waa Maxamed Cabbaas Geelle Soomaalida wuxuu weyn bay uga dhigan tahay ma sha Allah waa farxad noo soo hoyatay in White House-ka Mareykanka nala ku matalo haddaan nahay Soomaali muslim baan dambe socon maayo Donald Trumpna dadkan ugu galay dambaan waa salaamaya dunida muslimka واتا دونالد ترامب قدكيس طبعا وما قيل كرتid waxa halkan ila jooga nin isagoo dhalinyaro ah oo xabadkay ugu qoran tahay waan soo codeeyay bal iga war adigu farxadda dareemayso wallahi caawil ma soo koobi kadana jeer aniga magacay waa Mustafa Xamed Jibriil waxa ku sugan magaalada Minnesota gobolka Minnesota magaalada Minneapolis soo caawil ma soo koobi عاو فرحت كلية ما وحى أمد الصوماليين جدا عاو فرح سنتا because وحى فرح سنتا هو قبل الكويت أو مسلم أو صومالي ليش أسعتي وقتي واشنطن مركا والله أدم فرح سنة هاي إنك في أوضن أدم ما سنتي وقتي قارين وقتي أدم ما سنتا نين دل يرى يسمون هالكن اللي جوجا وطبعا رجونا أحسن مراها إسنا كقبة إنه مرة نقول يسندونا مقعاقة magacay waa Abdullahi walaale waxaan caawisa u jeedaa halka isku soo barnaamijka dhamaanteen fad lagu dabaaldagayo guusha walaashan Ilhan Umar ay gaartay noqon doonta gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed oo wax waaye firsan doonta wax waaye Congress-ka Mareykanka ka mid doonta waa guul u soo yeetay Soomaaliyeed oo guul u soo yeetay muslimka ku nool gobolkan waa faraxsanahay dareenka lama soo koobi karo walaashan waxa la qaybsanaynaa aad baad u mahadsan tahay sidoo kale nin isagoo dhalinyaro ah ayaa halkan ila jooga walaal magaca adigana guuleed Maxamed oo mahadsan tahay marka hore VOA dhan waa salaamaya marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo horta fariinta horta ku socota Donald Trump haye Donald Trump maanta la hadlo ama kaliya lama hadlin dadka gobolka qaasatan District 5
buuna ku faraxsanahay gabadha la doortay ku faraxsanahay aniga oo markii labaad aan doorasho ka qayb galo maxamuudo doorasho ka qayb galo Mareykanka joogo 18 sano xoogaa waa jooga waa markii labaad aan ka qayb galo markaan hadda waxa igu sii dheer tahay waa markii hore shaab si loo barto donation campaign da diibo waa markii hore socodana diibo macnaha waxaan dareemay qof ii hadla aniga يعني waxaad leedahay kaliya ma codeynay qarashna waa u adeegsan doorashada inaad dad soo saaro kaliya si qof ii hadlaya turkiga hadlaya baa meesha iibid marka hawsha la fududay baa sababta ninkan kale ayaa isaguna dadkii safka ku jira kamid ah soo dhaw adiga halkan imaanaya marka hore magacaaga ii sheeg adiguna aniga magacayga waxaan dhahay maxay cabdi Saciid Aadan waxaan ka madax dadkii ligeeshka ahaa Ilhaan Cumar isla markaasna daris baan ahay waa isla qaanay dhowr jeer ay weydiiso ay waxay tiri ka waran ma ku guuleysan karaa meeshaan haaba ay taraayid waxaan ula tagay Keith Ellison wuxuu yiri ma indhoos garay qoftan ku haboon tahay haaba ay saasa marka Ilhaan uu rajoonaay waxaan rajeynayaa inay aad ma santa waxaan rajeynayaa dad fara badan oo aad la hadli doonto iyaguna in ay sidaas oo kale noqon doonaan dadweyne badan ayaa halkan jooga dabcan dadka caawa halkan jooga waxa kamid ah fanaanka caanka ee Dalmayare oo isaguna ka sokow inuu meeshan heese ka qaaday oo xaflad Ilhaan loo dhigayo dabcan wuuna soo codeeyay laftiisa Dalmar marka hore adigu ku soo dhawaanay barnaamijka caawa iyo dareenkaaga iyo sida ay doorashadan kugu tahay boqolkiiba boqol caawa habeen farxad noo wada leh dhammaantayo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto Ilhaan kaliya kuma guuleysan dadka Minnesota waxay u noqon doontaa cod dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto that's why uu kaliftay inaan anagoo shaqo ka soo wada baxno soo cararno oo garab istaagno garabkeedana taaganahay iyadana waxaan kala jeedinaynaa xilka loo doortay inuu Ilaahay ku asturo dadkana ay wax u qabato insha Allah aad baad u mahadsan tahay Dalmar sidoo kale caawa waxa halkan aad u jooga dadka shaatiyada ama jaakadaha ay wataan Ilhaan Cumar magaceedu ku qoran yahay ninkan isaguna waxa uu kamid ahaa dadkii caawa dhan aan arkay oo horay gadaal mar walba u soconayay magacaaga adiga oo ugu bilaabaya caawa shakhsiyan adiga waxay kaaga dhigan tahay wallahi niyo aniga waxaan dhahaa barqad timir ayaa la dhahaa dagaalkan horaan ugu soo jirnay waxa aniga iga dhigan tahay waxa waaye waxaan hore u arag weeye waxaan gabar Soomaali ah oo Islaam ah oo laga doortay oo Congress-ka loo doortay weligeed ma dhicin waxay iga dhigan tahay taariikh cusub oo noo bilaabatay oo gabdhahan aniga dhalay gabdhahayga maashaan keenay caawa waxay iga dhigan tahay taas keentay inaan saddexda gabdhood meesha keeno waa taariikh cusub weeye maxaad ka rajaynaysaa Ilhaan iyo dadka kale Soomaaliyeed la doortay in ay qabtaan ama ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed wallahi dadkeenu waa dulman yihiin sanadkii 2016 waxa la doortay Donald Trump oo ah nin dhib badan oo dhinaca immigration-ka iyo waxa waaye islaam nacayb ku jiro waxaan aaminsanahay gabadhan waa gabar yar waa la fiirtay laakiin wadnaheedu intaanu leeyahay way la dagaalamaysaa Donald Trump waxaan aaminsanahay Donald Trump waxa waaye inay wax badan waxa waaye waxa waaye samayn karto ayaan aaminsanahay Donald Trump islaamka ma jecla waxa waaye immigration-ka ma jecla dadka badan ma jecla marka gabadhan intii oo dhan way tahay marka waxaan dareemaynaa waxaan aaminsanahay inay waxa waaye la dagaalami doonto Donald Trump markii ay tagto Washington waad aad baad u mahadsan tahay ninkan isaguna dhalinyarada ah oo kamid ah dadkii soo codeeyay ayaan jeclahay isna inaan dareenkiisa wila wadaago iga hor adigu maxaa dareemaysaa wallahi shucuurteyda aad bay u kacsan tahay waxaan dareemayaa in aan guul gaarnay khaasatan guul aan gaarnay Soomaali ahaan anagoo ku sugan Minnesota muddo ayaa Soomaalidu halkan isku dayeen in ay ama cod dhiibtaan ama ay soo baxaan waxa marar badan la dhihi jiray inay codeeyaan baa lagu qasbi jiray inay Soomaalidu ay dadka hadda doortaan maxay kugu tahay horta in aan soo baxno oo aan codeyno marar badan baa wuxuu nagu ahaa wax oo aan calashan waajib weyn naga saarneen laakiin hadda codeyntii waxay noqotay wax shakhsiyan noo saameynaya anaga khaasatan haddii aan nahay dad ku nool cariga Mareykanka oo ku nool qaxootinimo ama immigrant marka waxay u ahayd wallahi wax arin weyn oo maanta dhinaceena aan ka gaarnay in aan soo baxnay aan codkeena muujinay in aan la hadalnay golo walbo ha ahaato golaha baarlamaanka oo Mareykanka ama dhinac walbo si aan u tusino inaan nahay dad weli oo hay codkeeda soconayo aad baad u mahadsan tahay isaguna hadda waxa halkan jooga nin kale oo dhalinyaro ah Soomaaliyeed isaga ayaan fursad siinayaa dabcan dadka codkooda ku gortamay baad kamid tahay sidaan u jeedo oo waad soo codeysay adna haddaad ila wadaagto dareenkaaga iyo farxadaada walaal horta magacaygu waxa la yiraahdaa Jamaal Shuuriye Geedgale dareenka kaliya caawarta halkaan ay keenay waxay tahay inaan ka qayb inaan xaqiijiyo Ilhaan inay tahay qofkii ugu horeeyay dumar ah Soomaali ah Muslim ah ee u carara
jago noocaasa xaqiiqatan waxaan ka lahaa laba himilada koowaad aniga ilhaan waxaan wadaagnaa inay xero qaxooti ku soo koray taasi marka waxay dareensiinaysaa inaan aniga laftigayga gaari karo riyo noocaas oo kale midda labaad waxaan ahay aabe waxaan rajaynayaa gabadheeda yarta mustaqbalka idil inay ayadana gaari karto himilo noocaas oo kale taa inaan xaqiijiyo ayaan caawa halkaan u mid ilaahayna waxaan uga baryaa inuu ilaahay ku guulaysiiyo arrintaas inuu ilaahay ku guulaysiiyo noqotana mid dalkeeda u shaqaysa insha allah ka sokow himilooyinka wanaagsan ee aad sheegtay maxaad ka filaysaa waxyaabaha aad isleedahay waxaa la doortay gabar muslima sidoo kale gabar iyo wiil kale oo muslima ayaa aqalka gobolkan loo doortay waxyaabaha aad isleedahay dadkii kale ee gobolkan joogay ma aanay qaban oo adiga iyo dadka kula fikirka kula midibka kula aragtida ay u qaban karaan maxay xaqiiqatan waxaan aaminsanahay ilhaan inay u diyaarsan tahay inay qaban karto waxyaalo fara badan labada arrimood aniga aadkaan u doonayna waxay tahay islaamna ceebka heerkaa gaarsiisan inay wax badan imijkaas maraykanka laga aaminsan inay wax badan ka bedeli karto midda labaad inay wax badan ka qaban karto shaqo abuurka aniga waxaana qof bulshada ka dhex shaqeeya runtii waxaan ogahay inay jiraan arrimo fara badan oo xagga dhallinyarada shaqada ka haysta arrintaas waxaan aaminsan inay wax badan ka qaban doonto waxaan kaloo aaminsanahay in arrimaha guryaha oo runtii ayada laftigeeda dhibaato kale ku jirto inay tahay inay wax ka qaban karto saddexaas arrimood dartood waxaan aaminsan ilmaha inay tahay qof kartideeda leh awooddeeda leh aqoonteeda leh una furfuran inay bulshada Soomaaliya wax u qaban karto aad baad u mahadsan tahay daawadayaal haddana waxaa dhinacayga joogta Siciida Shaaciye oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa isla markaasina muddo ka shaqaynayay sidii haween Soomaaliyeed ay u soo bixi lahaayeen waxna u noqon lahaayeen dabcan guushu ilhaan kaliya maahan adiguna dadka guuleysada caawa ka mid tahay marka koowaad ka gabar Soomaaliyeed ahaan hambalyan ku leeyahay Thank you so much kulligeen waa adeeg xataa ugu jirtaa waa tahay waxaad iga warantaa Siciida Shaaciye caawa guushan u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo guud ahaan muslimiinta adiga shakhsiyan maxay kaaga dhigan tahay runtii wax ma aha wax yani farxad aan soo koobi kara ma aha waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay reer Minnesota ilhaan waqti dheer baan aqaanay ilhaan kaliya dad badan baa soo baxay waxaa soo baxay Hodan Xasan waxaa soo baxay Siyaad Cali waxaa soo baxay Maxamuud Nuur waxaa soo baxay ilhaan oo aanan yani dinaay gareyn karin waxay ii tahay hididiilo yani dhiirigelin aan dareemayo wadankan xuquuqda iyo sharciga iyo citizenka ayna siiyeen inuu yahay mid aan wax ku qabsan karno maadaama aad baad mahadsan tahay daawadayaal taasi waxay ahayd Siciida Shaaciye oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada caawa wuxuu ahaa habeen farxad badan marka la eego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo sida ay caawa u dareemayaan farxad miisaankeedu aad u sareeyo maadaama ay gobolka Minnesota laba qof oo Soomaaliyeed ay golihiisa Congress-ka ka mid noqdeen isla markaasina golaha Congress-ka ee Mareykanka ay ka mid noqotay Ilhaan Cumar oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya oo haddana qaxooti dalkan ku timid oo golahaasi ku biiraysa dabcan waa habeen Minnesota iyo Soomaalidaba taariikh u leh waa VOA oo Minnesota idin kale tan iyo kulan dambe nabadgelyo